السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha barta ciyaaraha.com ayaad kala socotaan. Nasra Xasan Maxamed Nasriin oo idin la socodsiin doonta. barnaamijkeena waxyaabaha ugu badan aan kaga sheekeyn doono waxay noqon doontaa tartanka Champions League oo caawa la ciyaari doono iyadoo waliba group xiiso badan caawa kulamo ay ka dhici doonaan kulamada ugu xiisaha badan ama guud ahaan hadii aan fiirno kulamada caawa la ciyaari doonana waxay ciyaaraha ka bilaaban doonaan group A ilaa iyo group F waliba group G iyo group H waa la ciyaari doonaa waana mid kamid ah group-yada ugu xiisaha badan tartanka Champions League. guud ahaan inta aan ciyaar dul istaagan hadii aan fiirno group A ciyaaraha ka dhici doona waxa kamid ah Atalanta iyo kooxda kubadda cagta Ajax ayaa wada ciyaari doona sidoo kale isla groupkaasna kooxda kubadda cagta Bayern Munich garoonkeeda ay ku soo dhaweyn doontaa kooxda Benfica. group F ciyaaraha ka dhici doona waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Hoffenheim ayaa la ciyaari doonta kooxda Shakhtar Donetsk. Manchester City Lyon gurigeeda ayay booqan doontaa. Russia ciyaar ka dhici doontana CSKA Moscow iyo Victoria Pilsen ayaa kulmi doona halka Olympico ay ku ciyaari doonaan kooxaha Roma iyo Real Madrid halka sidoo kalena kooxda kubadda cagta Juventus groupka ugu dambeeyay H ay la ciyaari doonta Valencia. Manchester United waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta Young Boys. waa guud ahaan kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaari doono tartanka UEFA Champions League. waxaan ku horeyn doonaa kulanka adag oo dhaxeyn doona kooxaha Roma iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid waana mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan. Roma gurigeeda ay ciyaartaasina ka dhici doonta groupka G ay ku wada jiraan labadan kooxood. kulankii ugu dambeeyay waxaan ognahay kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Roma ay wada ciyaareen in kooxda kubadda cagta Roma guul darro ay soo gaartay labadan ciyaartaasina ama ciyaartii kala cad Santiago Bernabeu kooxda Real Madrid ayaa 3 gool iyo kaga badisay kooxda kubadda cagta Roma markii ugu dambeysay kooxda magaalada Madrid ka imaada ee booqdaan caasimada Talyaaniga waxay ahayd kulan ka tirsan tartanka Champions League sanadii 2016 markaasna 2 gool iyo waxa ku badisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. dhawaanada ma dhicin Roma inay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta Real Madrid markii ugu dambeysay Roma ay guul ka gaarto kooxda Real Madrid waxay ahayd sanadii 2014 kulan ka tirsan tartanka International Champion Cup markaas oo ay Roma gool iyo kaga badisay kooxda kubadda cagta Real Madrid. labadan kooxood groupkan ay ku wada jiraan waxayna kooxda Real Madrid ay hogaaminayso 4 kulan ay ciyaartay 9 dhibcood ay leedahay halka Roma 4 kulan ay ciyaartay 9 dhibcood ay leedahay. labadan kooxood waxay ka siman yihiin min 9 dhibcood inay wada leeyihiin laakiin farqiga goolasha ayaa looga sareeyaa kooxda Roma. horyaalka koobkan waxa hogaaminayso kooxda kubadda cagta Real Madrid 8 gool oo nadiif ay haystaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Roma hal gool daro ay la kulmeen gool daradaasna Real ay kala kulmeen furitaankii tartankan waa kulankii ugu horeeyay wareeg gurbiyada tartanka Champions League ciyaar 3 gool looga badiyay. sidoo kale Real Madrid hal gool daro ay la kulmeen waana gool daradii ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee CSKA Moscow. marka aan fiirno kulankan labada tababar ciyaartooyda la soo shirtagi doonaan waxaa la sii saadaalinayaa Cartios inuu kaga soo bilaaban doono Real Madrid. Solari afartiisa difaac waxay u badan tahay Carvajal, Fran, Ramos, Marcelo, Modric, Toni Kroos, Isco, Bale, Benzema iyo Asensio halka kooxda kubadda cagta Roma ay u ciyaari doonaan ciyaartooyda kala goolhaya Ozon, Fassi iyo Manolas oo difaac dhexe ah, Kolarov iyo Florenzi oo garbaha ah, Cristante Enzonzi waxaa ka horeyn doona Stephen Al-Shaarawy, Pellegrini, Cengiz Under iyo Diego waa xidiga lagu magacaabo Eden Dzeko. marka aan fiirno Madrid xilli ciyaareedkan Champion goolasho ugu badan waxa uu dhaliyay Karim Benzema oo 3 gool dhaliyay, Gareth Bale oo 2 gool dhaliyay, Marcelo oo 1 gool dhaliyay halka Roma xidiga lagu magacaabo Eden Dzeko 5 gool u dhaliyay, Cengiz Under 2 gool u dhaliyay, Costas Manolasna uu gool dhaliyay. kulankan Roma waxa ka maqnaan doona kabtankooda Daniele De Rossi iyo Javier Pastore waxaa shaki uu ku jira Costas Manolas iyo Diego Brotti halka Real Madrid dhankeeda Jesus Vallejo, Mariano Diaz, Alvaro Ardiziola, Keylor Navas, Nacho, Sergio Reguilon xidig lagu magacaabo ay dhamaantood kulanka wada seegi doonaan. Casemiro shaki ayaa ku jira kulankan inuu ciyaari doono. ciyaartan waxaa lagu saadaaliyay 2 gool iyo gool kooxda kubadda cagta Roma inay kaga badin doonto kooxda kubadda cagta Real Madrid. waa saadaasha u badan tahay Madrid inay ku badin doonto kulanka waa Roma inay ku badin doonto kulanka Madrid iyo Santiago Solari ay soo booqan doonaan garoonka Olympico.
sidoo kale kulamada xiisaha badan ee la ciyaari doonaan waxaa kamid ah kulanka ay wada ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta ee Juventus iyo kooxda kubadda cagta Valencia iyadoo oo waliba kulankan uu yahay mid kale xiiso badan ciyaartan waxay ka dhici doontaa garoonka caalamiga ah ee ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus aan fiirino magaalada Turin ciyaarta ka dhici doontana Valencia ay soo booqan doonto kulankooda waa kulan aad u adag labadan kooxood waxay ka wada tirsan yihiin group H kulankaana waxa uu u muuqdaa mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan labadan kooxood UEFA Champions League isku arkaan waxa uu horeysay 2018 iyadoo oo waliba ay ahayd taariikhda markii ugu horeysay Valencia iyo Juventus Champions League isaga hor imaadaan ciyaartii Mastella ka dhacdayna 2 gool eber waxa ku badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus groupka markaan fiirno waxa hogaaminaysa kooxda Juve 4 kulan ay ciyaartay 3 gool iyo hal barbardhac ah 7 gool dhaliyaan laba laga dhaliyay 5 gool nadiif ah 9 dhibcoodna way leeyihiin halka Valencia saddexaad ay ku jirto 4 kulan ay ciyaareen hal kulan ay guuleysteen 2 kulan barbardhac hal gool daro ahna way la kulmeen 5 dhibcoodna way leeyihiin Juventus hal gool daro la kulmeen halkaas gool darana Manchester United kala kulmeen halka Valencia hal gool daro ay la kulmeen laba barbardhac ah halkaas gool darana kooxda kubadda cagta ee Manchester United waa kooxda kubadda cagta Juventus ay ka soo gaartay Fiorentina ay la ciyaari doonto kulanka soo aadan kooxda Juve kadib kulanka Champions League halka Valencia Real Madrid ay la ciyaari doonto kulan adag ka tirsan horyaalka Primera Division ka dalkaas Spain marka aan fiirno labada kooxood iyo shaqaha macquulka ay ku soo gali karaan tababaro Marcelini oo hogaamiye kooxda Valencia wuxuu ku soo shirtagi doona goolhaye Neto Waza Bolista xidig lagu magacaabo Garay iyo Gaya waxa ka horeyn doona Solar Barejo Gondogbia iyo xidig lagu magacaabo Mati waa xidig lagu magacaabo waa xidiga dabcan Portugiiska ah hore ugu tirsanaa kooxda kubadda cagta ee PSG ninka lagu magacaabo Gonzalo Guedes sidoo kalena Migi Batshuayi iyo Alberto Moreno ayay noqon doonaan waa Rodrigo Moreno ayay noqon doonaan weerarka ciyaartooyda Valencia markaan fiirno Juventusna Szczesny ayaa ku soo bilaaban doona Chiellini Bonucci Cancelo Matuidi Pjanic Bentancur iyo Cuadrado ayay noqon doonaan halka Paulo Dybala iyo xidig lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ee afka hore weerar ugu ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee Juventus marka aan fiirino Juventus waxa ka maqnaan doona Emre Can iyo Sami Khedira Leonardo Spinazzola gabi ahaan kulanka ma ciyaari doona Federico Bernardeschi shak ayaa ku jiro dhanka marka aan fiirinana kooxda kubadda cagta Valencia Denis Shefshi ayaa maqnaan doona Christian Benzema gabi ahaan kulanka ma ciyaari doona ciyaartan waxa lagu saadaaliyay kooxda kubadda cagta Juventus inay ku badin doonto 2 gool iyo eber ay kaga badin doonto kooxda kubadda cagta ee Valencia ciyaartaasina faa'iido weyn ay ugu jiri doontaa kooxda Juve haga kulamada kale hadii aan fiirnana sidoo kale kulanka loo xiiso badanna wuxuu u dhaxan doonaa kooxaha Lyon iyo kooxda kubadda cagta Manchester City waana kulan ka tirsan groupka F Manchester City ayaana booqan doonta dalka Faransiiska gaar ahaan kooxda Olympique Lyon iyadoo oo waliba ciyaartoodii ugu horeysay kooxda Olympique Lyon Etihad Stadium ay booqdeen 2 gool ku soo dhuftay kooxda Manchester City waana guuldaradii ugu horeysay xilli ciyaareedkan la bida ay ahayd kooxda hogaamiyaha ka yahay Pep Guardiola labadan kooxood groupka waxa hogaaminaysa kooxda waa Manchester City 4 kulan ay ciyaareen 9 dhibcood ay leeyihiin halka kooxda kubadda cagta Lyon 4 kulan ay ciyaareen ay 6 dhibcood leeyihiin maadaama 3 kulan ugu dambeysay barbardhac ay kala guuldaro aysan la kulmin kulanka soo aadan City waxay la ciyaari doontaa kooxda Bournemouth kulan ka tirsan Premier League halka Olympique Lyon ay aadi doonto guriga kooxda kubadda cagta ee Lille markaan fiirino labada dhinac kooxda Manchester City xilli ciyaareedkan waxa ugu gool badan ciyaaraanka lagu magacaabo David Silva oo 3 gool dhaliyay Jesus oo 3 gool dhaliyay waliba Bernardo Silva oo isagana dhaliyay 2 gool waan ciyaartooyda ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta Manchester City markaan fiirino Etihad Stadium kooxda ku ciyaarta wuxuu ku soo gali doonaa tababaraheeda goolhaye Darson ayaa ku soo bilaabo kara Stones iyo waliba Laporta iyo noqon doonaan Zinchenko iyo Walker waxa ka horeyn doona Silva Fernandinho iyo Delef halka Aguero Mahrez iyo Sterling afka hore weerar ciyaari doonaan kooxda Olympique Lyon waxa hogaaminayo ama hogaamin doono xidigii qaranka Faransiiska oo kadib kula guuleystay Nabil Fekir Memphis Depay Traore iyo ciyaartooy badan ay ka mid yihiin Marcelo iyo Lopez ay noqon doonaan ciyaartooyda u ciyaari doonto kooxda kubadda cagta
Olympic Lyon ciyaartaana waxaa lagu saadaaliyay inta aan saadaasha fiirnin City waxaa ka maqnaan doona Cody Bravo, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva iyo Gabriel Jesus kulankan waxaa lagu saadaaliyay 2 gool in ay ku badin karto kooxda kubadda cagta Manchester City waana sida saadaasha waxaa la aaminsan yahay City awood badan aysan celin karin kooxda kubadda cagta Olympic Lyon sidoo kale kulamada la ciyaari doona tartanka Champions League waxaa qayb ka ah kulanka dhexmari doona kooxaha Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Young Boys iyadoo Jose Mourinho toddobaadkii la soo dhaafay barbardhac gool la'aan uu la galay kooxda Crystal Palace kulan ka tirsan Premier League wuxuuna haatan ama caawa ku soo dhaweyn doona gurigiisa kooxda kubadda cagta Young Boys labadan kooxood waxay ka wada tirsan yihiin group H iyadoo groupkan uu yahay mid kamid ah groubyada ugu adag Young Boys iyo Manchester kulankooda ugu horeeyay UEFA Champions League is arkaan gruubyada 2018 ay ahayd markaas oo 3 gool kooxda United ay kaga badiyeen kooxda Young Boys groupkan labaad ay kaga jiraan kooxda Manchester 4 kulan ciyaareen 7 dhibcood ay leeyihiin Young Boysna 1 dhibic oo kaliya ay leeyihiin halkaas dhibicna waxay ku heleen ciyaar ay barbardhac la galeen kooxda kubadda cagta Valencia oo 1-1 ku soo dhamaatay inta kale guul darro ay la kulmeen kooxda kubadda cagta Young Boys kulanka soo aadan United waxay la ciyaari doontaa kooxda Southampton waana kulan ka tirsan tartanka Premier League halka Young Boysna kulan ka tirsan horyaalka Switzerland ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta FC Basel markaan fiirino waxa uu gool badan Manchester United xilli ciyaareedkan xidiga lagu magacaabo Paul Pogba oo 2 gool u dhaliyay iyo Jornato 1 gool u dhaliyay waliba Antonio Martial kooxda Manchester 1 gool u dhaliyay ciyaartooyda ugu goolash badan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Manchester United hadii aan fiirino shaxda macquulka Jose oo ku soo gali doona De Gea ugu horeeya Bailey Jones Valencia iyo Shaw waxa ka horeyn doona Pogba Fellaini iyo Fred halka Rashford iyo Sanchez iyo Lingard ay noqon doonaan afka hore weerarka waxaa dhaawac Manchester kaga maqnaan doona xidiga lagu magacaabo Victor Lindelof Marcos Rojo iyo xidiga lagu magacaabo Diego Dalot oo ay u badantaa kulankan dib ugu soo laabtan kasto aysan cadeen inuu ku soo bilaaban karo kulanka ay la ciyaari doonto Manchester kooxda kubadda cagta Young Boys kulankan waxaa lagu saadaaliyay 2 gool iyo eber kooxda kubadda cagta Manchester United ay kaga badin doonto Young Boys kulanka ugu dambeeya aan ka sheekeen doonana waa kulanka u dhaxeyn doona kooxaha Bayern Munich iyo kooxda kubadda cagta Benfica ciyaar ka dhici doonta garoonka Allianz Arena ee kooxda kubadda cagta Bayern ay ku ciyaarto kulankan waa mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan labadan kooxood markii isugu dambeysay ay ku ciyaaraan garoonka Allianz Arena kooxda Bayern Munich guul darro ay kala kulmeen kooxda Benfica waana ciyaar dhacday 2 sano ka hor 2016 iyo ciyaartaas ee bishii April 5teedii ayaana kooxda Bayern kulan ka tirsan Champions League inta Allianz lagu booqday gool iyo eber looga badiyay sidoo kale labadii kale ugu dambeysay waxay isku arkeen labadan kooxood kulanka ka tirsan Champions League mid waa kulankii hadda midna waa dabcan midna waa kulan ay is arkeen 2016 marna laba ay galeen marna 2 gool eber kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa ku badisay waxay ka wada tirsan yihiin labadan kooxood waa isku group waxayna ka wada tirsan yihiin group E waa group A dabcan aanada group E ay ka wada tirsan yihiin kooxda Bayern Munich iyana 10 dhibcood la 4 kulan ciyaarta Benfica 4 kulan ciyaarta 4 dhibcood ay leedahay Bayern Munich kulanka soo aadan Werder Bremen ay la ciyaari doonta kulan ka tirsan Bundesliga sidoo kalena ciyaartooyda xilli ciyaareedkan uu goolasho badan hadii aan fiirno Bayern waxa ugu horeeya Robert Lewandowski oo championka 4 gool ka dhaliyay Javi Martinez iyo Mats Hummels oo min 1 gool ka dhaliyay tartanka Champions League marka aan fiirno kooxda Bayern tababaraheeda ciyaartooyda macquulka uu garoonka la soo gali karo waxa ugu horeeya gool haya Manuel Neuer difaacyada waa Boyten Nicolas Sul Kimmich iyo Alaba halka Sanchez Martinez iyo Müller ay yihiin ciyaartooy qad dhex ugu ciyaari doona kooxda Bavarian Jetska Frank Ribery Lewandowski iyo Robben waxay u badan tahay afka hore weerarna ugu ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Bayern Munich Bayern waxa ka maqnaan doona Christian Tolisso James Rodriguez iyo Thiago Alcantara waxa shaki ku jira xidiga ciyaartooyda kala Sergio Gnabry iyo Matteo Hummels oo ay u badan tahay kulankaani in shaki ay ku seegaan balse kooxda kubadda cagta Bayern Munich
waxaa loo saadaaliyay kulankan 3 gool inay kaga badin doonaan kooxda kubadda cagta ee Benfica waan isku soo laaban doonaa kadib ayaan ka sheekeyn doonaa kulamada Andrade waxaan ka sheekeyn doonaa dabcan suuqii iyo waxyaabihii ugu dambeeyay kubadda cagta hagaag dhageystayaal markaan aan fiirino hal iyo laba sheekooyinka ugu waaweyn dhanka suuqa kala iibsiga qaaradda Yurub waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid ah wargeyska ka soo baxa gudaha dalka Jarmalka ee Berlin wuxuu leeyahay kooxda Chelsea ayaa aqbashay dalabkii kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund iyo lacagii ay duligtay xidiga Mareykanka ninka loo magacaabo Christian Pulisic xidigaasi oo 70 milyan kaga dhaqaaqi kara garoonka Signal Iduna Park Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay heshiis la gaarto Borussia Dortmund 70 milyan oo ginna ay ku la soo saxiixdaan xidiga lagu magacaabo Christian Pulisic ayaa si aad loola xiriirinayaa dhaqaaqista Premier League ka hor intuusan xirmin suuqa kala iibsiga furmi doona bisha Janaayo ee soo aadan Liverpool ayaa wax badan isku dayday ciyaaraanka heerka caalami ee dalka Mareykanka inay geeyaan gobolka Merseyside ee Liverpool ka dhisan tahay Chelsea ayaa la fahamsan yahay in ay tartan xoogan u gali doonto ciyaaraankan The Mirror Ingiriis ka soo baxan wuxuu leeyahay Chelsea wada hadallo ay kula jiraan kooxda Signal ku ciyaartay ee Borussia Dortmund 70 milyan iyo labada kooxood isku afkarteen labada kooxood ayaa ku heshiis ku gaaray horaanta bisha Janaayo ciyaaraankan in la soo gabagabeeyo kooxda Borussia Dortmund waxay sheegtay in ay fasax doonto Pulisic hadii ay ku helaan lacagaha ay baad goob ugu jiraan Chelsea waxay diyaar u tahay ciyaaraankan in garoonka Bridge ay ku soo kordhiyaan bisha Janaayo ee soo aaday iyagoo xifaaltan kala kulmi doonaan kooxo badan 20 jirkan hal sano ayaa uga harsan qandaraas uu kula jiro kooxda Borussia Dortmund isagoo waliba Borussia waxay rabtaa xidigan lacag kaasha inay ku iibsadaan Chelsea Pulisic waxay u arkaan bedelka Eden Hazard kaasoo qandaraaskiisa uu dhici doono dhamaadka 2020 waxaan aad loola xiriirinayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid sidoo kale sheekooyinka Chelsea ugu waaweyn waxaa kamid ah maanta waxaa leeyahay weeryaanka kooxda AC Milan Gonzalo Higuain ayaa lagu soo waramayaa markaan inuu u furay albaabada kooxda kubadda cagta Chelsea dalab walba oo kaga yimaado Blues ayaana si xoogan loola xiriirinayaa xidiga Argentineska inay soo qaataan Gonzalo Higuain ayaa ku biiray Milan isagoo 2 sano heshiis amaah kaga mid ahaan doona kastoo milkiyadiisa ay leedahay kooxda ka yimaada gobolka Biandamudo ee Bianganeri taasoo ay ka dhigan tahay wuxuu qayb ka ahaa kala bedelashadii ciyaartooyda Matteo Caldara oo San Siro ku aaday iyo waliba Gonzalo Higuain Leonardo Bonucci dib ugu dhaqaaqay garoonka kooxda kubadda cagta Juve ee Allianz Stadium Arena Higuain ayaa dhaliyay 7 gool 13 kulan u saftay kooxda Rossoneri laakiin Corriere dello Sport waxay sheegaysaa xidigan inuu doonayo Premier League inuu dhaqaaqo 30 jirkan waxaa aad baad goob ugu jirta tababarihii hore ee hay'ad taliska magaalada Naples kooxda ka yimaatay ee Napoli Mauricio Sarri kaasi oo Chelsea u dhaqaaqay wuxuuna aaminsan yahay in uu mar kale bilaabi doono xiisii u qabay ciyaaryahan Gonzalo markii bilowda bisha Janaayo Chelsea waxaa la sheegay in aad loola xiriirinayo in ay dhibaato xoogan kala kulmeen labada ciyaartooy weerarka ku ciyaaray Alvaro Morata iyo Oliver Giroud kuwaas oo u muuqda kuwo aan kooxda ku hogaamin karin tartan xoogan waxayna soo bixaysaa hadal ku aadan Gonzalo iyo waliba xidiga lagu magacaabo Christian Pulisic kadib markii Chelsea guuldarro ay kala kulmeen kooxda Tottenham kulan ka tirsanaa derby London kaasoo ay Chelsea dhibaato xoogan ay kala kulmeen ama ay dareemeenba in meesha aysan weerar ku haynin sidoo kale sheekooyinka kala suuq waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid ah
kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa si xoogan loola xiriirinaya soo qaadashada xidiga qadka dhexe Real Madrid iyo xulka qaranka Spain ninka lagu magacaabo Isca Alcaron ciyaaryahankani iskuma qanacsan ayaa leeyahay tababaraha cusub ee kooxda Real Madrid ninka lagu magacaabo Santiago Solari maadaama Solari ciyaaryahankan Janis fiican uu siinin xidiga lagu magacaabo Isco hal kulan 90 daqiiqo u dhameystay malahan ee kulamada la liigaha ee ciyaarta kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana xidigan uu sheegay in la taagan yahay xilligii uu ka dhaqaaqi lahaa garoonka Santiago Bernabeu ee caasimada dalka Spain Ramsey ayaa bixi doono waliba Ramsey wuxuu ku wajahan yahay la kooxaha Talyaaniga midkood Napoli iyo kooxda kubadda cagta AC Milan taasina waxay ka dhigantahay ayaa leeyahay Real Madrid ciyaaryahankan inay sii cishan karin ay iska soo fasixi doonto 70 milyan ayaa lagu qiimeeyaa Arsenal ayaana diyaar ah in ciyaaryahanka ay qaataan ugu dambeyntiina barnaamijka waxaan kusoo gabagabayn doonaa xidiga Milan iyo kooxda xulka qaranka Talyaaniga ninka lagu magacaabo Matteo Gallardo waxaa la sheegay in bisha Febraayo uu dib u soo laaban doono waa akhbaar u farxada kooxda Rossoneri difaaca dhexe ama difaacii hore ee kooxda Juventus ayaa dhaawacmay isagoo waliba xilli ciyaareedkan hal kulan xitaa aan u soo muuqanin kooxda waliba dhaawac ayaa ciyaaryahankan soo gaaray dhaawac dhanka muruqa ah ugu dambeyntiina waxaa la sheegay Matteo Gallardo Toto Mercato waxay leedahay bisha Febraayo ay u boontay inuu soo laaban doono isagoo Toto Mercato la hadlay wuxuu yiri waxaan rajeynayaa bilooyin yar kadib inaan dib ugu soo laabto waxaan u xiisay in aan ciyaaro wax badan ayuu leeyahay ciyaaryahankii hore ee kooxda Juventus Matteo Gallardo guud ahaan waxa halkaas inooga eg barnaamijkii ciyaaraha tan intaan barnaamijka lamid ah wada ka kulmi doonaan waxaan idinkaga tagayaa nabadino